madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa weerar culus ku qaaday guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xabiibul malaayiin guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidankii ugu badnaa ayuuna duldhigay iyada oo dhawaan uu laga heshiiyay hanaanka doorasho ee Soomaaliya haddana madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu qaadayaa baa la yiri tallaabooyin guracan oo uu rabo inuu ku cabsiyo ragga uu isleeyahay weeraan kursiga ay ka ridan karaan maxay tahay sababta Farmaajo gurigiisa loo duldhigay ciidan badan loona weeraray dhowr jeer waxaan kaaga soo warramayaa Muqdisho waxaan ku hayaa xog iyo macluumaad faahfaahsan golaha mustaqbalka markii ay ansixiyaan hanaan doorasho oo toos ah kadib ayuu weerarkan dhacay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna beesha caalamka ayaa cadaadis saaraysa oo waxay cadaadis ku saaraysaa in doorashadiisu mid ka saxsan ay wadaan mucaaradka isla markaana uu raaco dhinaca mucaaradka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud caqabadahaas adag ayuu wajahayaa sidoo kale waxaan ku hayaa Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar waxay la wareegtay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe markii uu noqday hogaamiyaha South West ayada gudoon baarlamaan noqotay inta laga dooranayo gudoon kale kalfadhigii sideedaad ee baarlamaanka ayaa harsan waxan oo dhan oo isdiidooyina sidee lagu xallin karaa aragtidaada noo reeb waa mahadsan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gurigiisa oo ku yaala agagaarka gegada caalamiga ee Aadan Cadde ee Muqdisho toddobaadii ugu dambeeyay habeen kasta ciidan la duldhigaa waxaa la wariyaa in weerar lagu yahay gurigaas dabaqyada ku dhow ciidamo snipersa oo meelo dhaadheer wax ka tooban karo la saaray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna Farmaajo uu diyaariyay wax uu ekshir qool dila sida ay xogtu leedahay waxa la yaabka uu yahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud cabsida ugu badan hadda rag uu ka qabo ay yihiin Sheekh Shariif iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weerarkii Shariif uu ku fashilmay laba maalmood iyo laba habeen oo isdifaacayay wuu dagaalamay wada hadal la galay markii dambe oo xitaa beesha caalamku ay ku jirtay markana wuxuu rabaa inuu ku dayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna la leeyahay ciidan badan oo hubeysan ayuu haystaa waxaana difaacaya saraakiil dhalinyaro oo ugu horeeyo sareeyo gaas oo dhawaa Yuusuf Raage taliyihii hore ee militariga Soomaaliya wararka aan helayno waxay si cad u xaqiijinayaan in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidan aad u badan dawladda ay ku daabulayso ayna uga gol leedahay in lagu cabsi geliyo xubnaha mucaaradka ugu horeeya madaxweyne Farmaajo xogta aan helayno waxay hadda sheegaysaa in guriga Farmaajo ciidankii ugu badnaa duldhooban yihiin isaguna uu diyaar u yahay inuu isdifaaco inkastoo aag lagu dagaalami karo uusan deganeen oo xirada xalana iyo garoonka Aadan Cadde u dhaxeeyo oo goob ammaana degan yahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud marka cabsi xoog leh inuu ninkan ka qabo ayaa la soo warinaya geesta kale waxaan rabaa inaan kula wadaago xogta sheegaysa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud doorasho dadban uu laabtay golaha mustaqbalka markii ay soo saareen hanaan doorasho oo Puntland, Jubbaland iyo madaxda mucaaradka isku raacsan Xasan Sheikh waxa la sheegay inuu aad uga carooday arrinkaas beesha caalamkuna ay sii raacday jab xoog leh oo isagoo soo gaaray ayuu u arkay baa la yiri tallaabadaas isagoo in doora ka gilgishay in markaasi lagu soo taageero ama lagu dhiso xubnaha mucaaradka ugu dambeyn midiisii waa hirgeli weysay isaguna wuxuu sheegay inuu qabanayo doorasho degdega oo tii 2022 oo kala ah ka dhacaysa Efesiyoni mucaaradku aan diyaar garoobin inuu boobsiyo oo xildhibaano soo jaafjaafo isla markiina kala tuuro ayuu qorshaystay baa leeyahay oo ku tanaasulayaa doorashadii qof iyo cod ka ahayd lama ogo sida uu noqon doono xaalka laakiin wali siyaasadda Soomaaliya waa cakiran tahay Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ah ayaa iyaduna si ku meel gaar ah ula wareegtay xilka gudoomiyaha kadib markii Sheekh Aadan Madoobe loo doortay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa ku yeeshay kulan aan caadi ahayn kaas oo ajandihiisu ahaa xil wareejinta gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe si rasmi ah xilka looguma wareejin ku-xigeenka laakiin waa ku meel gaar waxayna sii hayn doontaa xilka ilaa laga dooranayo gudoomiye cusub si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka munaasabada xilkan loogu wareejinayay marwadan ayaa waxa markaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ama gudoomiye ku-xigeenka labaad ninka noqonaya hadda Cabdilaahi Cumar Abshirow si weyn ayuu ugu mahad celiyay waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiyihii hore ee golaha shacabka hogaamintiisii hufnayd iyo doorkii uu ka qaatay baa la yiri horumarinta shaqada golaha muddadii uu xilka hayay sidoo kale wuxuu ku tilmaamay in Sheekh Aadan Madoobe oo door muhiim ah ka qaatay dardargelinta howlaha sharci dejinta kor u qaadida wada shaqeynta golaha iyo ilaalinta midnimada golaha
dhankiisa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo hadalka qaatay ayaa isaguna uga mahadceliyay xubnaha gudoonka iyo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka wada shaqayntii iyo taageeradii ay u muujiyeen muddadii uu xilka gudoomiyenimo hayay isagoo xusay in guulaha la gaaray ay ahaayeen kuwa ku yimid iskaashi wadajir iyo dadaal ay si wadajir u muujiyeen dhammaan xubnaha golaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha ahna siihayaha gudoomiyaha golaha shacabka Marwe Sacdiye Xaaji Samatar ama Marwe Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa dhankeeda uga mahadcelisay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka shaqadii iyo hogaamintii wanaagsaneed ee uu soo qabtay waxayna ku ammaantay dadaaladii uu ku bixiyo horumarinta golaha iyo kor u qaadida doorka golaha geedi socodka dowlad dhiska wadanka Sacdiye hadda waxay sii ahaan doontaa in markaasi ay sii hayso xilkan gudoonka waxaa xusid mudan in Aadan Madoobe uu noqday madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya halkii laga eriyay ninka la yiraahdo Lafta Gareen ayuu qaab awood kula wareegaa